بسم الله الرحمن الرحيم ومحمود. إن شاء الله waxaan rabaa inaan tuso habka maalgashiga loo maalgashado kambanigan. Maalgashigiisu aad buu u fara badan yahay, marka waxaan sameynaynaa kulli waxaan rabaa inaan tuso taabsi ka dhigno maalgashiyada in kala tuso. waxay raali ahaada waxaan gashan doonaa passwordkayga iyo username. hadda waa kan akoonkayga waa dhex jooga. lacagtaas ayaa igu jirta 39.4. maalgashiyada waxaan geeskaas ayaan taaban doonaa open deposit meesha ay ku qoran tahay. kan labaad open deposit ayaan ku dhufan doonaa. maalgashiyada marka waa kuwa kan. maalgashiyada mid waxaa leedahay mining, eco business, renewable energy, Pol USD, Pol Bitcoin iyo SGC. intaas oo maalgashi ayaa jira. waa 6 maalgashi. marka 6 maalgashi mid kasta way kala duwan yihiin. mid ayaan isku dul taagi doonaa. mid kastana shuruuc gaar ah ayuu leeyahay. tusaale ahaan kan koowaad haddii ku dhufano mining aan tagno waa kan. waxa la yiri minimumka ugu yar waxa weeye $10 inaad gashatid. maximumka ugu badan waxa weeye inaad $200 gelisid. kan ugu badan yacni term of shaqeynayo 15 beri ayay shaqeynaysaa. waxaa laga jarayaa maalinta sabtiga axada. yacni waxay shaqeynaysaa marka waxa ka go'aya 2 beri baa ka go'aya. 4 beri ilaa 2 asbuuc bay shaqeynaysaa. 2 asbuuc waxa 4 maalmood baa go'aya oo sabti axad. asbuuca kalena sabti axad baa ka go'aya. marka waxa laga yaabaa dhowr iyo 20 beri inay idin la gaarto 15 days. sababtoo maalmo waxaa jira laga jarayo lacagta in gadaal laga siin doono. maalmo kale lagu bedeli doono. يعني daily income ku soo gali doono waa $1 iyo bar ilaa $1, laakiin $1 iyo bar bay badanaa dadka siiyaan. boodritan waxa la lacagtaadina waa lagu soo celinayaa lafahaagii hadii aad kan maalgashatid. akoonkan haddii maalgashatid lafahaagii waad helaysaa. 15 berina bay ku shaqeynaysaa ka maqnaanaysaa lacagtaadu. maalin kasta waxaa helaysaa $1 iyo bar. kaas waa ka tusaale ahaan calculator-ka hadda xisaabino aan dhaho. tusaale ahaan war haddii aan $10 geliyo waxaan heli doonaa to calculate markaan dhahno maalin kasta waxaan heli doonaa 0.15 city. markii ay ii dhamaato yacni 15kii berina net profit ka qaadan doona waxa weeye 2.5 ayaan heli doonaa. hadhowdina waxaa la baxayaa lafahaygii oo $10 ahaa iyo 2.5kii soo galay. halkaas ay lacagta ku haystaa. haddaan bedelo aan dhaho tusaale ahaan $100 ka dhig waxaan dhahaynaa to calculate maalin walba waxaan heli doonaa $1 iyo bar. net profit kan hadhow qaadan doona 15kii berina faa'iidada qaadan doona waxa weeye 22.5. lafahaygii markii la igu darano lafahaygii la waa soo celinayaa 122.5. waa halka maalgashidkan miningku. kan ku sii xiga hadda tagno eco business-ka. haddii aan tagno eco business waa kan waxa la yiri minimumka ugu yar waxa weeye 201 inaad gelisid $. waxa ugu badan baa inaad gelisid minimum amount waxa weeye inaad gelisid $100. lacagtaadu waxay maqnaanaysaa baa la yiri 30 beri 30 days. daily income maalin kasta ku soo gali doonana waxa weeye ku soo dhici doonana $1 iyo 10 city waaye. total income ka hadhow profit faa'iidada qaadan doontana waxa weeye $33 maadaama ay 30 beri ku shaqeynaysay $1.1 ku. lacagtaadina waad heli doontaa board return. lacagtaada waa lagu soo celin doonaa. tusaale ahaan kan oo kale hadda ku tijaabaan dhaho $100 geli. haddaan geliyo maxaan heli doonaa sorry 200 tusaale iga soo qaadaan geliyo maalin walba waxaan heli doonaa 2.21. hadhowdana $66.33 ayaan heli doonaa iyo faa'iido lafahaygii la soo ceshiyo $276. good. kanna waa isla akoon kale oo laba akoon bay ka kooban tahay. 3 akoon meelahaas aad bay u weyn tahay. tusaale ahaan tanna waxa waa la yiri 1,000 baa ugu yar. waxa ugu badan inaad gashatid 10,000. 60 beri bay lacagtaada maqnaanaysaa. maalin kasta $1.3 baa heli doontaa. total income ka hadhow soo lixdan $78 waaye. lafahaaga waa lagu soo celinayaa wax noocaasa
لكن سأنو بدنا وحنا قشدا بول يو اس دي بمال قشدا بول يو اس دي فائدة يا أدو بدن تسالهان ستوك كان حد رأياني أنا قال عكتي كوجرت أنا قال الله الله ستوك ال أيا لي هذا وحا وير $10 وحا ugu badan 250 oo dollar 9 bari ay lacagtaadu maqnaan doontaa ay shaqeyn doontaa daily income ka maalin kasta ku soo gali doonana waxa weeye $3.10 total income ka qaadan doonto hadhowdina waxa weeye $279 board return ma jirayso lacagtaadii waa gudubto laga qaatay laakiin se faa'iido double ka badan ayaa heshay oo $279 ayaa waxa ku dhalay boqolkaagii sidaas ay shirkadu ku qaadatay يعني la faa'iido lafahaagi waxay kuugu jiraa total income ka ay kuugu jiraa $279 ay kuugu jiraa marka already waxa ka jirta boqolkaagi lafaha boqolkaagi wax markaas hadaa ka jirtid maxaa faa'iiday $279 baa faa'iido anu kaas ay lacagteeda hadda ku jiraa laakiin si waasi maal gashan kara waxaan dhihi karaa tusaale ahaan hadda aniga waxay ugu jirtaa $350 aniga in la hadlaayo qalabkaas waxay soo dhacdaa $10.85 net profit ka aan qaadan doono waxa weeye $976.5 lafahaygina way ugu jiraan markaas lafahayga ka jiraya stock kana stock 8 lacagta ka maqnaanaysa 8 maalmood maalinba 2.9 baa helaysaa yani markaas in waxa ku xisaabtataan in aad markasta oo waqtigu bato lacagtaadu way badanaysaa markasta oo waqtigu yaraadana lacagtaadu way yaraanaysaa marka already hadda akoona kan hadaan tuso akoona kana ugu weyn 1 milyan buu qaadaa $10 baa ugu yar milyan buu qaadaa 100 maalmood bay lacagtaadu maqnaanaysaa daily income ku soo galay doona akoonkii hore 9 bari baa laakiin waa 100 bari lacagtina waa 3.3 bay noqotay total income kan waxa 330 ayaa ku soo galay doona boqolkaagi dhali doona 100 bari gudahood lacagtaadina ma heli doontid oo yani lafahii way tagtay 330 ayuu boqolkaagi ka jar waxa $230 baa ka faa'iiday boqolkaagi aad ayaad u mahadsantihiin wixii su'aalaha waa isoo weydiin kartaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh